السلام عليكم walaalahey kusoo dhawaada Nuursa Cooking maanta waxaan idin wadaa ukun si qurux badan aan u sameyn doono iyo khudaar maasha Allah waxaan ku sameyn doonaa basbaas yaanyo ukun iyo basal insha Allah intaas ayaan isku dari doonaa isla socod wanaagsan walaalaheyga haatan waxaan jarjari doonaa khudaartii aan ku dari lahaa ukunta waxaan ka bilaabayaa yaanyadan waa yaanyada yar yar ka dhadhanka fiican leh ee fresh iyadoo waaye yaanyada markaan jarjaro khudaartii kale tan waan jarjari doonaa haduu Ilaahay karaali noqdo walaalahey maasha Allah khudaartana si fudud aad u jarjaranaysaa ukuntii khudaarta intaba waa isku darsanaysaa ma ahan wax adag waa wax qof walba sameysan karo insha Allah haatan waxaan jarjaroonaa basasha iyo yaanyadii waan jarjaranay haddana waxaan ku dareynaa basbaaska hal xabo kaliya ku darsanaya sababtoo ah ilmaha rabaa inaan siiyo ma rabo inaan ku kululeeyo ilmaha hadda laakiin dad waaweyn kaliya ay yihiin wax badan waa ku darsan kartaa marka maasha Allah sidaas aan u jarjaraa yar yaraan u jarjaraa khudaartii aan isku darayaa hal mar baaquliga ku wada shubi doonaa haduu Ilaahay karaali noqdo haddana waxaan jibinaynaa ukumankii aan haysanay markaad ukumanka sidaas aad ugu shubtid baaquliga waxaad kor ugu shubi doontaa khudaartii haduu Ilaahay karaali noqdo ma ahan wax dhib badan aad u dhib badan ma ahan wax aad u fudud anna waxaan ka rabaa quraac fudud haddaad doontid casho waa ka dhigan kartaa wax alaal waxa rabtid aadna ku cuni kartaa insha Allah anna waxaan ku doortay waa hawl aad u fudud ma ahan wax dhib badan khudaartii iyo ukuntii iyo waxa dhan hal mar isugu wada shubeysaa markaa jarjartid kadibna waxaa la aadaysaa dabka taawulada la aadi doontaa haduu Ilaahay karaali noqdo haddana waxaan ku darsanaynaa maraq digaag yar oo khudaar ka sameysan haddana ukuntaas si fiican isugu qasaa iyo khudaartii iyo maraq digaagiisa si fiican isugu dhexgalaan haddana taawulada saliid yar ku shubanaa insha Allah waa arki doonaa see noqon doonto quruxdeeda maasha Allah haddana ukuntii aan taawulada ku shubay maasha Allah walaalaheyga tijaabiya waad ka heli doontaan ilmahana way jeclaan doonaan maasha Allah ilmahana aad ugu fiican yahay wax dhadhan fiican leh waaye mar waliba ilmaha ukunta aad ay u jecel yihiin waa walaaqi doonaa insha Allah si aan u ogaado biseelkiisa iyo ceeriinkiisa heerku uu maraayo haatan ukunta si fiican u walaaqa kama rabi ukunta in ay iga adkaato waxaan rabaa inaan jijibiyo si ilmaha ugu fududaato inay cunaan bas ilmaha way yar yihiin si fiican markaan u walaaqo ukunta iyo khudaarta intaba isugu wada jirto haatan sidaas ay ku soo baxday maasha Allah walaalaheyga haddana waa laga dajiyay maasha Allah waa ka sidaasaan u diyaariyay maasha Allah sidaan ugu soo baxay waxa rabtida ku cuni kartaa laakiin muufa ku cunooya hadii aad jeclaatay muufada